Soo dhawaada asxaabay ku soo dhawaada Somali School Leaders University. Haddii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato YouTube channelkayga, subscribe saar, videogana like saar. Maanta waxaan qaadanaynaa casharkii 7aad ee maamulka ganacsiga Business Administration. Mowduuca casharka maareynta xiriirka macaamiisha Customer Relationship Management oo laga soo gaabiyey CRM. CRM waa nidaamka ay ganacsiyadu u adeegsadaan si ay ula xiriiraan macaamiishooda, u ilaaliyaan xogtooda, kana helaan faa'iido dheer xiriirkoodaba. Ujeedooyinka bartayaasha: fahmidda waxa CRM tahay iyo sababta muhiimka ah. Kala soocidda noocyada xiriirka macaamiisha. Isticmaal aaladaha CRM ee maamulka ganacsiga. Xalinta dhibaatooyinka macaamiisha si wax ku ool ah. Qaacidada muhiimka ah: macaamilka ku faraxsan ganacsi guuleysta. Mar haddii macaamilku uu ku faraxsan yahay waxa uu ka iibsanayo ganacsigaas wuxuu noqonayaa ganacsi guuleysta. Micnaha marka aad si fiican u maaraysid xiriirka macaamiishaada, waxaad abuurtaa kalsoonida, waxaadna kordhisaa dakhliga iyo sumcadda ganacsigaaga. Noocyada CRM hawshiisa: xogta macaamiisha maalin kasta. Salesforce, HubSpot. CRM falanqaynta: xogta falanqaynta go'aanada. Google Analytics. CRM kaabaha xiriirka dhexe kooxaha. Slack Teams. Halkan su'aalooyin ayaan ku falanqaynaynaa. Su'aasha koowaad: maxay CRM ka duwan tahay liiska caadiga ah ee macaamiisha? Sidee ganacsi yar u isticmaali karaa CRM? Nambar 3: ciyaar door sooc ah xiriirka macaamiisha oo kor u qaadaa. Adiga ayaa laga rabaa inaad dhamaystirto. Tani waa Leyli. Guriga ayaa kaga soo jawaabaysa ama meesha aad fursad aad ku hayso hawsha guriga. Macnaha qor warbixin kooban bog oo ku saabsan ganacsiga aad dooratay u isticmaalo CRM iyo faa'iidooyinka uu ka helayo keenista usbuuca soo socda. Casharkeeni 7aad halka ayuu noogu egyahay. Inuu mar kale iyo kulanti dambe oo xiiso leh.